السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وهذا السلام يا سودا وهذا وواسكي طبرا وها سيلا يمغلا هذا شغا كبحيون وحيرو عنتان وحيرو عنتونا أن أيان سوقتي مقت عنتيرون عني سعادة ولي الله فسو قلن قاريقا قاعد دقنا يا هذه مقالة مينيابوليس هاد وقصنت هاي هذه بيو قصنتها مقرسين أنا مسوا قليل لايف لوضع مالين وقاس كتقبله وها سودا هذا ميول بتوع عالم كجوكتان وهذه سلامية وتقبله وكبله فارح ولا الكيس معه كي كيرا بشير بالله متنان عايز أقول سعيب كيس قرش ودرس كيس كون ولا وراو ناقر سيف كوساها جاب بكت جلكت مع الشورية بنا وين شتها بقى بغوري هذه وحاوي يرت حالات حبة مينيابوليس كتاجن وهذه ودبن أرنتنا وحي كبلابتي ويل مذوي أو مقرر سايد كان أفريكان أمريكان كا يا عسكري وحاوي الله وعي قصده وحيود عضي سيدة ويلك وحو استعمالها يي جاك بقري جاكاسي qoladii uu wax ka gadanaya grocery waa ka shakiyeen waxay u maleeyeen jaagan uu ninkan isticmaalayo whatever markaas xaaladda ay ku sugnaayeen inuu yahay wax feega waxba ka jir qoladii hoostay booliis ka wacday booliiskii way waceen waxay ku yiraahdeen degdeg ha noola soo gaaro nin tuug ah oo madow ah ayaa wuxuu rabaa inuu na dhaco oo wuxuu noo qorayaa jaag aan waxba ka jirin qoladii booliska ahayd waa timid marka halkaa markay taagan tahay yaan rabaa inaan idiin fasiro maraykanka waxaa weeye dembiyada marka la qaadayo waa kala duwan yihiin haddaan hadda qori qaatoon dukaanka galo waxaa weeye waa raabari wacnaa dhacban geysanaya waa inay ciidan badan ay yimaadaan ciidan badan oo aad u tira badan waa inay yimaadaan si dhaca ay qoriga aan wax ku dhacay loo joojiyo haddii haddaanoo duqbulow bartan taagan iyo ninka taraaggaa saarana isku dhacno oon isku qabsanno wax ma garanaysaaye baarkinkaas aan dhiganayno hadda aniga waxaan u shaqaa macnaa gaari u wadaa oon hadda u shaqaynaya qolada target waa qolada caawal dhacaya wey guryahooda iyo dukaankooda waa ka berigaa u shaqaynaya aad iyo aad haddaan halkaas ku qabsanno oon booliis wacno waa inay yimaadaan laba askari waa inay timaado si xaaladdaasi ay u dejiso oo dacwaddii noogu kala qoraan marka arrintii minneapolis ka dhacday waxay ahayd inuu laba askari ama hal askari intuu yimaado xaaladdaa la dejiyo la weydiiyo ninkan jaaga iyo lacagtu isticmaalayo qoladii magaraysaa dukaanka lahaydna magaraysaa ribood loo qoro kadib maxkamad la islaado ma dhicin arrinta ayadee sababtay ku dhicinna waxaa weeye aniga kalarka haddaan leeyahay madowga aniga minority baan arda laangaab dhalay oo afrikaan oo weliba soomaali si ay baan magaraysaa markaan hadlayo laga garanaya inaan aksan leeyahay luqaddeeda magaraysaa garabta waa la garanayaa kuwii madowga ahaa ee waddanka la gumaysanaya ama waddanka la keenay waqtiyo hore la keenay waxaa weeye waa la mid baan annagu laakiin ka sii hooseynaa marka qofka markii la yidhaahdo waa African American ama waa black ciidan badan oo dibaabado wato ma garanaysaa gaariyo wato yaa soo aadaya meesha xaaladda si u dhacdaan idin wadaay dhageyst af Ingiriis baad ku dhageysanaysaa wax Soomaali idin ku warramo ana ugu horeeyaan ma soo dhawaada si shargaray aad marka wiilkii markay askartii timid waxaa weeye gaarigiisu ku diray baarkin lood ku fadhiya gaarigiisu ku diray ciidankii baa u yimid su'aalaha la weydiinay ilaa hadda cod laba su'aalaha la weydiinay adigu siday ku dhacday oo ma naqaan wiilkii gaarigiisa askartiba ka soo qabatay way jeebeesay way soo kaxeysteen kaamirooyinka dad arkaysaan ama daawateen ninkii oo garan wato oo ma garanaysaa gacmihiina ka xiran ayay dhinaca u soo kaxeeyeen dukaanka dhinaciisa kadib marka waxaa weeye waddankan nidaam baa ka jira dadka madowga waxaa weeye waa looma ooyaan wey waxaa ka dhabtay ninkuu ilaahay ka badbaadiyo oo ilaahay gacanta nimanka cadaanka uusan ku dilin ilaahay waa ka badbaad laakiin kuwa kale ma garanaysa dad badan baa ku baxay oo ninkan aan koow ahayn oo laba ahayn oo saddex boqolaal madow ku baxay African maxal dhaa Black Lives Matter waad maqasheen baan u maleeyahay aad iyo aad marka halka markay xaaladdu marayso ninkii waxaa weeye luuqa la galay luuqi markay la galeen gaarigoodii askarta ahaa agtiisii waxay dhigteen ma garanaysaa seexiyeen
laba ninna waxa weeye lugeey kaga fariisatay midna dhabarka yuu kaga fariistay midna halkaa giirka luqunta yuu jilibkiisa kaga qabtay ilaa wiilkii madowga ahaa uu ooyo uu baryo askarigu dhaw please aan neefsada wax yar neeftay oo galo wax yar si yar xataa iga qaad wuu baryo waxa weeye adduunyada intaan hadda wax daawanaynay ama aad arkayseen qisadaasay u dhacday hore loo markay balaag badan ama African American ama dad madow far badan oo la dilay way jirtaa aad iyo aad laakiin dadka qori baa lagu dilay xabad iyo magarasa isbursi iyo baabuurro isbursanaya lagu dhufta laakiin wiilkan madowga darbiga macnaha gaariga markay ka soo saarayeen ama magarasa baabuur kala soo baxayeen way jeebeen waxay ahayd sharci ahaan intay qaadaan inay gaariga askarta geliyaan xabsigana loo dhaadhiciye whatever dambiga markaas asaga u galay dhageysta hadalkayga dhageysta marka wiilkii markay la soo baxeen ee gaarigooda dhinaciisa lay waad cajalada waa daawataan u maleynaya waa la seexiyay qaabkii lagu seexiyay ilaa hadda baqab kaameradii oo magaraysa askartu ay wadatay body camerada loo yaqaanay ilaa hadda waa la sugayaa qaab ay ku seexiyeen cid garayso wiilkii oo jiifo iyo maamo adeeganaysay oo kaamera duubayso oo leh war ka kaca wiilka wiilkiina leeyahay alla hooyoy waraan neefsaday war wax yaraan neefso Soomaaliyeed ku sheegay Soomaaligu qaab daray markii luqadda Ingiriiska lagu fasirayo waqtiga luqadeeda marka wiilkii oo baryotabayo iyo waxaan ku baraarugnay magaraysaa adduunyada isla kacad saacada iyo waqtiga iyo xaaladda hadda idin la hadlay aniga hadda kambanigana gaari wada waa target weeyaan waa baalka la dhacaya weeyaan qoladan hadda la dhacaya ee dhaca lagu wado ee magaalada Minneapolis yaano duqlo toreelo wada hadda target magaraysaa waa kara waa tukaanka hadda la dhacayo ee dhaca uu ka socdo ee magaraysaa xaaladiisu ay bariga dhaxatahay nasiib wanaag laakiin anigu hadda waxaan joogaa meel kale oo aan ahayn gobolka Minnesota gobol kale aan ku suganahay meeshana madow badan ma joogaan walaal waa meel ay talaglayaal yimaadaan magarataadiyan marka sababta marka gaariga macnaha company-ga target loo target gareenayo company-ga target beleero tukaan weeye oo lagu gado electronic iyo telefishanada iyo magaraysaa waxa lagu gadaa Allah musta'aan adi wax walbo you name it marka halka markay maraysa dib u soo noqonayna waxa dhacday markii wiilkii uu baryootay ee uu yiri please aan neefsado ee u diideen oo waliba dadkii shacabka ahaa ee cadaalada Dubai baa u yimid way baryeen askarigii baa la baryay askarigana wuxuu ahaa xaasid dhalay oo cuzuri ah oo redneck ah oo dadka madowga nacab waxa 20 sano ka shaqeynaya Minneapolis ilaahay baa fashilay Soomaali badan buu magaraysaa xabad ku dhuftay 2018 wiilal la dilay buu kamid ahaa iyo 2003 labada jeer buu ka qayb qaatay la yiri report kala soo dhigay halka markay xaaladda marayso ceebta state of Minnesota ama magaalada Minneapolis askarteedii ku dhacday yaan idin sheegayaa cadaalada reason bay ku soo baxday cadaalada daawatay inaad arkayseen sabab bay ku soo baxday sababta ku soo baxdaan idin sheegayaa ninkii markay jilibka ku qabteen ee uu neefsan waayay waliba uu baryay ee uu waliba 8 daqiiqo miya mise 7 daqiiqo uu jilibkiisa ku hayay nafta ka baxday yaa waxa yimid qoladii dabdamiska iyo qoladii caafimaadka degdeg ambulance u shaqeysatay cadaalada wad arkaysa wad dawaraysan ninkii ambulance u shaqeynayay ee magaraysa dhinaca ka socday dhakhaatiirta ka socday luqunta bartaasu ka saaray macnaha qofka markuu ama nool yahay ama dhintay laga fiiriyay halkaas uu ka saaray luqunta wuxuu ka saaray gacanta wuxuu hubinayay inuu dhinto macnaha marka ayada ninka asaga waa dhintay ninka madowga naftu ka baxday hadalkayga dhis marka ayada ninka naftu waa ka baxday waxa dhacday marka booliiska report bay soo saareen waa sharci weey marka waa inuu booliisku markuu dhaco uu report qoraa reportkaasna uu dadweynaha soo gudbay idaacaddan ay qaadataan habeenimada markii arrinta dhacday ee wiilkii uu dhintay yaa waxa dhacday Allah musta'aan afayeenka booliska ee gobolka macnaha magaalada Minnesota ama degmada Hannibin yaa idaacadda hor yimid ceebta ka dhacday idin wada dhageys markii idaacadda hor yimid mikrofoonka qaato telefoonadii la shiday ayuu wuxuu yiri qora macnaha tukaan lahayd bayna soo wac hadalka la qurxinay dhageys qora tukaan lahayd bayna soo wacday qolada tukaan kale markaan aan u tagnay iyo ay noo sheegeen in magaraysaa forgery progress uu socdo ama magaraysaa laqdaba oo lis khiyaamay lacag iyo waxyaabo naas isku khiyaamay ay socotoon meeshii tagin yaa waxa dhacday askartii wiilkii bay ka soo bixiyeen gaarigii buu yiri dhageysta halkayga wiilkii buu gaarigii ka soo bixiyay wiilkii markuu gaariga ka soo bixiyay waa la xiray oo waa la jeebeeyay markii la jeebeeyay askarigii uu jeebeeyay bal halkayga dhis
askarigii markii uu jeebeeyey ee gacmihii laga xiray ayaa waxaa askartii dee naxariislaamihii caddaanka ahaa ee wiilka dilay yaa qoraya wuxuu leeyahay markuu wiilkii magaranaysaa ee uu jeebeeyey yaa askarigii yaa naxariistay bal dhegaysta qaabka la soo dili jiray intayna kaamarooyinkii maalin baan idiin sheegay askarigii baa naxariistay oo wuxuu arkay askarigii baa wuxuu arkay in wiilkan uu xaalad caafimaad ay jirto xaalad caafimaad inay jirto askarigii baa magaranaysaa ee reediyowgii qaatayoo wuxuu wacay qoladii caafimaadka degdegeen qoladii caafimaadka degdeg ahayd baa timidoo qoladii baa magaranaysaa bartanka qaaday markii isbitaalka wiilkii la geeyana waa dhintay hadalkaasuu yidhi afhayeenka booliska magaalada minneapolis degmada hannibin dadkii joogay ee markhaatiga ka ahaa ee baryay ee yidhi walaalow ka sii daa ha neefsada odhanayay yaa xanaaqay markay even newska habeennimada warka soo gala markay arkeen bay xanaaqay cajaladii facebooka la soo dhigay marka ceebtaasaa ku dhacda horta minnesota iyo minneapolis iyo degmada hannibin county dhegaysta hadalkayga markii arrintaa ay dadkii maqleen ay xanaaqeen cajaladii baa facebookii 3 in the morning markay minnesota u ahayd 3 subaxnimo oo saq dhexe habeennimo la maraya waa berigii iyo gabadha soo dhex dhigtay qofkii dubay uu soo dhigay sidii buu viral cajaladda ku noqotoo lagu ogaaday waxaa isqaban waayey dhegaysta waxaa isqaban waayey oo ummadda maraykanka deggan caddaan iyo madowba muslim iyo gaalba adduunyada uga dhawaaqaysa waxaa weeye afhayeenka booliska hannibin county ama minneapolis iyo cajaladda aad daawateen eed arkayseen wiilka mama hooyo ku haya bal dhegaysta hadalka ugu dambeeyey wuxuu ahaa qofku adduunyada ugu jeclaa hooyadii weeye macnaha nin walba hooyadii buu xasuusanaya ma garanaysa aad iyo cajaladda waxaad ka daawateen ood markhaati ka eedeen ninkaas in nafsadiisa laga baryay oo dad badan oo gaal iyo islaamba isugu jiro caddaan iyo madooba leh ee askariga baryeen oo ay ku dhawar war ka kac war ninka waad xirtay war gaariga geli war saldhiga u qaad jilibku ku sii nabaya ma garad jilibka intuu soo qabtay yuu jilibku ku sii nabayay saas weeye jeebkana gacanta saasuu gusay xaaladdaas horta meesha ka dhacday xaaladda sidaasay u dhacday okay maxaa xigay marka waxaa xigay waxaa weeye arrintii markay saa u dhacday ee degmadii afhayeenkeedii booliska iyo ninkii taliyihii ciidanka iyo duqii magaalada iyo mooyarkii iyo madaxdii minnesota markay isu timid cajaladiina ay kaantarooli laayihiin oo qaab laa kaantarool garan laayihin waa laisku noqdo mooyarka go'aan buu qaatay mooyarka magaalada minneapolis wuxuu yidhi waa khalad total waa khalad subaxnimadii wuu hadlay waa ilinbuu iska keenay ma garanaysa aad iyo aad because of mooyarkay u shaqeeyaan ciidanka booliska degmada ama magaalada waxay u shaqeeyaan ninka duqa magaalada ee hoos yimaadaan si toos hoos yimaadaan marka maasha allah go'aan horta xaaladdu inay khalad ahayd waa la arkay mooyarkii iyo chief of police-kii go'aan waxay qaateen raganimo leh isla markiiba waxay ku dhawaaqeen habeenkii isniinta ahayd markay ahayd sideedda fiidnimo markay ahayd bay arrintaa dhacday adigu markay 13 saacadood ka soo wareegatay yaa go'aan waxaa lagu gaaray in ma garanaysaaye la dejiyo because xaaladda hadda jirtaa loogaa iyo inay ka sii dari doonto iyo inay revolution isu beddesho halkaa markay taagan tahay waxay idiin sheegay dalkan maraykanka awoodda leed aragteen ee adduunyada ma garanaysaa ugu awoodda badan ee ma garanaysaa America lagu leeyahay sababtuu ku dhashaa waxay ahayd boqortooyada ingiriiska gumaysan jirta sababtuu ku dhashay baa waxay ahayd sokorta shaaha yaa laga qaadi jiray canshuur dhegaysta shaaha macnaha sokorta yaa canshuur laga qaadi jiray dawladdii iyo boqortooyada ingiriiska waxay tidhi sokortii shaahana waa kaa qaaday shaaha markaad karisaan maraykan suu ku dhashaan idiin sheega dhegaysta shaaha markaad karisaan ee shaaha la kariyo bakeeriga lagu shubo asagana canshuur baa ka rabnaa dadweynihii maraykan waxay yidhahdeen war sokortii baad canshuur ka qaadatee see haddana shaahi canshuurta macnaha shaahi sokorta laga sameeyey see canshuur uga qaataan halkaasuu ka dhashay revolutionka maraykanka ee United States of America ay ku timid hadalkayga aad dhegeyso sokortii bay shaaha ka qaateen haddana sokortii waa la kariyo caleen baa lagu daro shaah baa laga sameeyey shaahi markii la kariyey kildhigii laga qaaday bakeeri baa lagu shubayaa bakeeriga markaa ku subtay askartii ingiriiska ee boqortooyadii waxay yidhahdeen haddana waa inaad bixisaan canshuur dadkii waa xanaaqeen waxay yidhahdeen war sokortii baad ka qaadatay canshuur haddana mashaahi baad canshuur ka rabtaa bal dhegaysta mashaahi iyo haddana dadku way xanaaqeen saasuu George Washington iyo United States of America
iyo baawarkan aad arkaysaan wuxuu ka kacay shacab buu ka kacay dadweyne xanaaqay oo la gumaystay oo la ciilay iyo ka kacay arrinta halkaas ka bilowday sidii buu daalku marka naga iga kaxay marka taariikhda marka waxa tagaynaa Minneapolis waxa dhacday shalay oo talaaday mooyarkii subaxii waa yimid waa suspend buu geliyay askartii dhageysta ma jiifkii iyo mooyarkii waa freesteen askartii yaa waxaa la yidhi waa la suspend gareeyay waana nidaam waddanka Mareykanka jiro qofka shaqeynaya hadduu dambi galo ama khalad iyo wax uu galo waa in suspend loo dira shaqadii shaqa joojin lagu sameeyaa baaritaan la bilaabaa hadalkayga aad dhageyso waa in shaqa joojin lagu sameeyaa kadibna baaritaan la bilaabaa sidaa darteed marka halkaa laga ambaqaado xaaladda marka sidaasay rabeen magaalada Minneapolis iyo duqa magaalada iyo chief of police-ka arrintaasay rabeen inay ku sameeyaan arrintii marka waa ogaadeen fiidiyoogii idaacadihii waaweynaa dadweynihii meel buu qabsaday waa arkeen oo waa yaabeen wuxuu yidhi xaaladdan xaalad aan u malaynayn inay dagaysamee wax weyn baa soo socdee arrintan aan ka hortagno 4 saacadood ama 5 saacadood u dhexaysa 3 PM markay ahayd oo shalay talaadee mooyarkii iyo chiefkii waxay ku dhawaaqeen 4 askari ee ninkaas magaranaysaa dhibaatadiisa qaybta ka ahaa shaqadii waa laga fiijiyey daasa waxa weeye waa arrin wanaagsan talaabo wanaagsan weeye shaqadii waa laga fiijiyey daa macnaheeda waxay tahay raggan inay dambiilayaal ay yihiin aadiyad wayara xamaasadaysanaa inay raggan ay yihiin dambiilayaal inay yihiin taas xaqiijinaysaa mar haddii shaqadii laga buriyo macnaheeda waxaa weeye raggan waa dambiilayaal waxaa weeye wixii halkaa ka dambeeya waxaan raadinaynaa qaabka u xukumileen dadkii waxaa la rabay shacabweynaha insaan lagu dajiyo arrinta saas ahayd ayadoo saas tahay baa dadkii madowga ahaa iyo qof walba fiidiyowga daawaday waa xanaaqay waa xanuunsaday macnaha qof bili aadane gaal hadduu iyo muslim wuxuu doonaade qof bili aadane oo nafti looga qaadayo si islow oo silac jilib nafta lagaaga qaado adduunyada ugu ha jilibka intii lagu qabto nafta lagaaga qaado oo waliba baryootan naxariis darrada kaaga dara gaalka caddaanka dhageysta gaalka caddaanka naxariis darrada oo baryo uu leeyahay please BSC please jilibkayga qaad please waxaan neefsado please wax yar in yar iyo ogolow oo dadkii baryayaan fiiri naxariis darrada askariga kale ee dhayarteen waxa waajib ku ahayd markuu qofka Mareykanka sharci ka jiray askariga ana lacag siiyo uniformku wato ana bixiyo lacagtiisa dhageysta uniformka lacagtiisa ana bixiyo mushaarkiisa ana bixiyo anu ii shaqeeyo waa public servant way that means waa inuu aan protect gareeyo way dambi kasta aan galo maxkamadda Mareykanka waxa leedahay sharci Mareykanka wuxuu leeyahay ilaa qofku ay maxkamad xukunto dhageysta ilaa ay qofku maxkamad intay xukunto oo juuri u fariisto oo loo fariisto oo la gorfeeyo oo taraal xaq uu helo waxa weeye dambi ma leh waa dambiile weeye markii dambiga lagu xukumo ee la yiraahdo dambiga wuu galay waa lagu cadeeyo waa lagu marxaat furay yu dambiilaya xabsi banishment uu galaya haday tahay dil iyo haday tahay xarig iyo haday cimriga ku furta haday tahay halka markay marayso yaa mooyarkii iyo muxuu ahaay jiifku isku noqdeen wuxuu yiraahdaa xaaladan saa kuma dagayso baashu waa xun tahay ragana fijiwaal fijiyo waxa dhacay marka habeennimadii galabtii markay ahayd wataan cajaladaha idii soo gudbinayay shacabkii darooyinka kacay dadka lama soo saar lama qudbaynin magaraysaa lama announce gareenin qof walba oo damiir leh dhageysta qof walba oo damiir leh ama cadaan ha ahaado ama madow ha ahaado bili aad ku doon ha ahaado ama dheer ha waa ka xanaaqay dareen ba soo bixiyay waxa jiro xanuunkii coronavirus ka jiro Mareykan lockdown ku waxay ka baxday muddo yar ka hor bay ka baxday wali xanuunkii baa jiro oo dadka la kala baqaya oo maqaaxiyii ma furo oo meelna ma furo dadkii waxay hilmaameen shacabkii waxay hilmaameen oo niyadooda ka saareen inuu xanuun jiray xanuun coronavirus la yiraahdo inuu jiray yay dadka hilmaameen dadkii oo dhan waa soo baxeen banaankaas loo soo baxay jikaakiya teedeedka la istaagay meesha wiilka lagu dilay halkaas la mudaharaaday dad badan oo aad u tiro badan oo kumanaan kun gaarayo yaa isu soo baxay oo saqiiri kabiir leh waxaa dhacay marka xaaladdu barta markay marayso qoladii degmada Hanibin kale ay og yihiin dambi weyn ku jiraan xaaladdan ay bariga dhaxatahay yaa habeennimadii waxaa dhacday marka mar mudaharaad hadduu bilaado ciyaal suuqana waa iska jiraa dhagax tuur saldhig waxaa la tagay laan ka mid ah xaafadaas Muqdisho kale idinku tilmaamaya hadda Muqdisho kaleeto waxay leedahay magaraysaa gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho headquarterka booliska jiro haddana xaafadda hodan ama xaafadda Wardhiigley ama xaafadda magaraysaa xaafadaha kala duwan ee Muqdisho waxay leeyihiin saldhigyo oo ciidan oo kala duwan bay leeyihiin marka saldhig
oo ciidanka Minneapolis ka tirsan oo qaybta saddexaad oo magaraysaa ku yaalo Minnehaha saan u maleynaya Minnehaha iyo Lake Street inuu ku yaalo maleynaya waa meesha hadda target lagu cunay marka meeshii baa rag dadku way xanaaqeen meeshii baa la yimid baabuurtii askarta ciidankii magaraysaa booliska Minneapolis baabuurtoodii iyo guryahoodii yaa la jajibiyay yaa dhagax lagu tuuray yaa la aadiya dadka xanaaq ba ka keen macnaha madaxdii baa qirayso maanta le dadka magaraysaa shucuurtooda kacsaneed wax dambe kuma laha waxa weeye dareenkoodana waa loo ixtiraam Mareykan tu ku fiican yahay taas weey magaraysaa tu Mareykan ku fiican yahay ee uu kaga hormaro waxa weeye dadka dareenkooda iyo caradii ka dhalatay waa loo ixtiraameediyad inkastoo ay dalkoodii iyo ciidankoodii baabuurta ayaga iska laha ayagana xanaaqaygan jibo xaaladdu markay saas u dhacday xaaladdu markay saa u dhacday yaa maanta oon hadda saacadan aan taagannahay dhowr saacadood ka hor atiig 3 saac 2 saac ka hor duqmi magaalada Muqdisho Jacob waa dooranayna duqaas Minnesota reer Minnesota waa inaad doorano way reer Minneapolis wali magaraysaa degan ahaan dadka Minneapolis degan waa inaad doorataa waa nin magaraysaa aad u wanaagsan ma xumo waa taariikhda Mareykanka markii ugu horreysay mooyarada iyo chief of police-ka iyo governorada waxay difaacaan askartooda inta badan waxay difaacaan askartooda waxay yiraahdaan magaraysaa ciidankanaga khalad ma galin dambi baa socdo waa xaaladda in kalena waa idinka tagay ciidamada FBI-da ee federaalka Mareykanka ayaa soo fargeliyay markaas adi 2 saac 3 saac ka hor waxaa hadlay mooyarka magaalada magaraysaa Minneapolis Jacob odayga waa hadlay si wanaagsan oo qurux badan buu hadlay waa runtii wuxuu yiri markaad go'aan qaadanayso nooc ama dhimashaha noqdo ama nolol ha noqdo go'aan markaa qaadanaysid waxay ku xiran tahay wax ilbiriqsi hadalkayga aad dhageyso wax ilbiriqsi ee leeg bay ku magaraysaa ayaa ku filan inaad magaraysaa dad askari tahay qori lagu dhibay oo awood haysatid inaad magaraysaa gacantaada qaadid oo distooladii soo qaadid oo qofka ku qabatid oo fargada qabatid waa wax sakane marka go'aan baad qaadan kartaa oo sakane inaad qof dishid iyo inaad dilin marka mooyarka soo hadlay aad bay wanaagsan wuxuu yiri ninkan wuxuu haystay macnaha 300 oo sakan oo uu go'aan qaadan karay waa la baryay buu yiri macnaha intaas oo sakan hadduu 1 sakan kamide uu go'aan qaadan lahaa hadalkayga aad u dhageyso hal sakan oo kamide hadduu askariga go'aan qaadan lahaa oo dhawaaqa dadka iyo dhawaaqa wiilkaasi oo magaraysaa hal sakan kaliya uu ku qaadan lahaa oo uu magaraysaa sakankaas jilibka kor uga soo qaadan lahaa kaliya waxaa laga yaabi lahaa bal inuu qofka badbaado u noolaado balaadeega aad u dhageyso inuu ninka wiilka u badbaado oo nafsadiisa neef yar intuu hela sakanka kaliya waana run way xaqiiqda dhabte maskaxda fiyo shaqeynayso dhasaa oo shaqeynayso waa sakan kamid hadduu luqunta jilibku kaga haya uu ka qaadi lahaa waxaa weeye neef buu heli lahaa yarkan saga neef buu heli lahaa marka ayada waxaa weeye maasha Allah waa go'aan buu qaatay marka wuxuu yiri mooyarku marka wuxuu yiri waa in ma garanaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo xiraa askariga waxaanan amray oo go'aan la qaatay uu yiri xeer ilaaliyaha degmada balagayst waxaan go'aan la qaatay uu yiri xeer ilaaliyaha degmada Hennepin County magaciisa iga maqanaya go'aan la qaatay waxaa la isku afgartay dambiga lagu xukumayo inuu yahay magaraysaa first degree second degree whatever waxay tahay in 4 nin la soo xiro iyo magaraysaa ka jilibka ku haya la soo xiro laakiin mooyarka wuxuu ku adkaystay yiri ninka jilibka ninka ku haya in nafsada ka qaaday naxariis laawa wuxuu yiri waa la soo xiraa sababtoo aniga haddaan sameyn laano mooyare waa la xirla adiga halka fadhiya Mareykanka ee reer Minnesota reer Minneapolis haddaa arrintaas sameyn lahayd waa lagu soo xiri lahaa wiil marka waa sida ugu dhaqsiyaha badan waa loo soo qabtaa loo soo xiraa wiil aadiya halka xaaladdu markay marayso oo xaaladdu barta taaganta barta marayso yaa galabta waxaa dhacdar mudaaraad kala la isugu soo baxay anigu taama taageersan dhageys aadiya hadda aniga waa dhuumanaya sababta loo target gareenayo kabariga target macnaha governor ka horeeyay oo Mike Dayton mal yiraahdaa yaan u maleynayaa aabihii iyo wiidii ba kabariga target iska lahaa waa duq macnaha governor ka horeeto gudoomiye horeeto gobolka Minnesota waa waagi wiilka xabadda lagu dilay madowga markaas uu jagadahay xanaaq iyo carab badan baa jirtay war sababta u because of target waxa iska leh Mike Dayton family-kiisa iska leh oo magaraysaa waa company weyn oo Mareykan iyo Canada aad looga yaqaan marka xaaladdu halka markay marayso yaa maanta la isku soo baxay waxaa dhac loo geystay dukaamadii waa la boobaya aad iyo aad marka hadda aniga madow badan aniga madow
وقف مدوه يا هذا تارجت بنتريلو وذي كستون والماد يسقى وشقيه تارجت كان هذا تريلو وذي وان بقى إن بوب اللي يسوق هذا ديال إن بوب إنتي اللي يسوق هذا جاري بقرر ساي بوب لوكس هذا ديال مركا إلى أنا مركا حالة ذلك مركا برش أنا قمت يلاقوا مراد وحاول بناك سكيل الشري هذه مركا وحاول أكسر هذا في عناد إن ما قرر ساي دتكو الشعور توضب موجان أنا قلت يلاقوا موي دقيس إن دتك الشعور توضب موجان وحيابها دتك مذوقة يصير نوير عذرية وحكمه هذا سيدي صلى الله عليه وسلم بحي كمانك كون بناك ويما وحناك سوي هذه إن وحلا جبيو ومقرر ساي ده نوال بوحك هذا تارجت بلدعي يعني مقرر ساي بريس كرر سريو أو قرر ساي دياد وطو وان بقى مذو مركان كذا وحلا يوريا بحاجة غلط هذه حالة حاجة وسعتها أنا جوا مذو بلاقي مقرر ساي نقول لحظة لي بركة تذكر الشعور توضم موجان شعور توضم موجان أو مقرر ساي صوب بندقان أو مقرر ساي مظاهرات وفرس تمن من تيجي مريكا شيء لكن هنا تكامل الجبسان مذوق قد يفهم يا سؤال الله وحنا أكثر ما سؤال هذا مركها حقيقي قادرنا أنا قلت قبله ولي هذا ولكن بنا هاي سؤال هذا نضو ذا وحاول حقوق السؤال هذا ميل البيت جوجا برادية أكسروا عدل هذا الطبيعة ده سؤال تاي كفجوا تارجت كفجوا ميلاد نجح لقوا توريو كفجوا ميل والبو فايلس قصة سؤال ولا لا صوابته هذا عندكم كمانش this is not Africa this is not a third world this is United States of America وحلقوا سمينا داكن وحلينا لكن معناه ده وحاول every عجلات أول الضوبة every عجلات المظاهرات كان لقى الضوبة every دباتها هذا تارجت لوجو شري they not gonna succeed ما succeed قرينا يعني عجلاتها صدّن قالوا ده criminal كا FBI ذا بوليس كلوكال كا ولا عروسنا يا ميل اللي جاي دب الله داورنا يا قفل بصور بلقى قاعد دب الله داور عجلاتها صورها لقى قاعد نك ميل باللي جاي ولا قرادين هذا الكي قاعد نقص ولا قرادين ويكون دبقليان next 5 هدا تكبت بادد هكقيب قادان فايلس كالسعودة بنيابلس هدا كبت بادد oo sawir ku qabta ka fogow ha tagin meelaha dhaca ka socdo ha tagin meelaha dhagaxa la tuurayo waad ka qayb qaadan kartaa meelaha mudaharaadka nabadda ay ka dhacayaan waa Soomaalida hadalkayga aad u dhigis you do not have money oo magaraysaa league Mareykanka sharcigiisa haduu faraha kula soo gal xaaladiisa bariga dhaxaway cadaladaha la duubo oo dhan hadda ee mudaharaadka laga duubay booliska naftirkooda undercover dharcade oo kula mudaharaad iska dhigeen way ku duubayaan fiiri dhagays waxa kuma dhahaya because waa laga awood badayay shacabku waa xanaaqsay waa kacsayn waxa weeye undercover ba ku dhex jira boolis oo dadka ku dhex jira oo garanaynin kaamero wata qof walba uu duubaya everybody uu duubaya qof walba uu duubaya qof walba markuu kaamera laga duubo database ka xal gelinaya booliska Minneapolis iyo Minnesota la gelinaya hal ilaahuma 10 sano ku qaadato dadka hadda ka hor Baltimore ka mudaharaaday ee dhaca ka geystay ee magaraysaa buuqa kiciye ku digood xabsi ku jiraan hadalkayga aad Soomaaliya ka fogow waxaan ma ciyaar ma wixii bananbax nabadeed wixii magaraysaa kaga qayb qaadanaysid magaraysaa shucuurtaada gooni weeye waa xaalad kale weeye hadalkayga waa xaalad kale oo magaraysaa macquul gal weeye laakiin mar hadduu dhac iyo violence u bilaado waxa laga yaabaa inaad hooyo tahay waxa laga yaabaa inaad aabba tahay waxa laga yaabaa inaad hooyo iyo aabbi iyo reer ee adigu magaraysaa ku dhowranayaan it's not good hadhow sawiradaada la qaadanaya askartu meel bay dhiganaysaa waxa weeye markii waxa laga baxo oo xaaladan degto oo askariga cusuriga la xiro oo dadku kala dagaan askarta shaqa u soo baxaysa marka shaqada marka askarta u soo baxaysa waxa weeye cadaalad dib loogu noqon waka duqbrow dhageys waka duqbrow finaanada hudiga wato waxa weeye waa la yaqana sawirka meel la dhiganaya face recognition baa la gelaya DMV-ga iyo meesha ma garanaysaa ee driverless-ka laga qaato ya sawirkayga lagu maaj gareynaya adoo isloogeena gurigaaga lagu imaan adoo ogeyn oo ka warhaynin oo xaaladda la socon gurigaaga kugu imaanaysa FBI police tuug la soo qabta amal baa lagu soo qaban xabsiga ku dhigayaan waxa lagu jaaj gareynaya kartoon kamida dhageys kartoon kamida kartoonada la dhacayo ee dukaamada laga dhacayo ama boobka uu ka socdo in ma garanaysaa lugtaada ay ku dhacday hadalkayga dhageys inaar even waxba dhicin oo TV waxba jibs waxa laga yaabaa kartoon inuu jilibka ku dhac just sawirkana waa ku qab sawirka meel baa laganaya hadhow waxa lagu jaaj gareynaya inaad tuug tahay oo dhac geysatay oo bool garim garaysaa geysatay oo garaysaa boobas saasalo ka fogow aad iyo aad marka xaalad saas u dhacday kambaniga hadda la dhacayo ee dhaca loo geystay waa kambaniga hadda aniga tareelaha wada way duqbrow oo hadda aan garaysaa u shaqeynaa target bal yiraahdaa aad iyo aad
marka waxa weeye inuu ilaahay dadka kala badbaadiyo waa weeska duqbulowaha cabaar baan yara hadlay waxa la yiraahdaa kambaniga ma kamarada waa reflection baa umaleynaa waa target aad iyo aad waa target weeyaan waa kambani weyn oo Canada iyo Mareykanka ku yaala aad iyo aad suugaas hadda la dhacay dhac badan loo geysto marka xaaladdu halkaas ay maraysaa aad iyo aad baa idin salaama weeska duqbulowaha shaqada hadda ka baxay maanta ilaa weekend ilaa shalay timiya kama hadlayna wax siyaasada waxa ka hadlay waxa weeye oo kaliya magaraysaa arinta Minneapolis ka dhacday iyo adduunyada dhan haysto xamaasadeed u kululbeed ma garatay marka aad baa idin salaam ya khayr sharafta leh siyaasadana berri baan gali doonaa hadduu ilaahay yiraahdo anigu da miskiin iska shaqaystaan aad iyo aad miskiin shaqaysto xoogiisa cuno meelaha iska hordaanay gaaladaas ilaahay magaraysaa ii cabiidiyey anoo madow waliba Soomaaliya isaga dhex jira magaraysaa aad iyo aad yaa waxa weeye invisible bal iska dhiga invisible bal iska dhiga wala isaga dhex jira wala la shaqaystaa jaaga ala soo meelaha ka tagay streedyada iyo waxa taagatiga horta shaqays saacadu waa lacag way marka raadiya tan waa run suxun baa loo dil laakiin jaag foojari iyo lacag faagaasi booliis waxa ku kari booliis baa u dhawaan hada Soomaali tan aqli Soomaalida aqli ba ku nool ma garashaadiyad waa rag shaqaystaanay taksiyal baan wadnaa ma garaysaa waxaan wadnaa ma garaysaa taragyaan wadnaa shaqays qaar maqaxay iska furteen waraad baa idin salaam waaska duqbulowaha oo iska xamaalanayo hadda shaqo ka baxaad baan u daalay salaamu calaykum waraxmatullahi